waxaad arkaysaa dad badan oo guulaystay waxaana la yaabantahay sida ay halkaas ku gaareen balse adigu weli halkii ayaad taagan tahay. Waxaa jira hal sir oo ka qaran dadka guulaystay oo aynan kuu sheegin, waana tan aan maanta muuqaalkan kuu sheegi doono. Guushu ma aha wax si lama filaan ah ku imaada, ma aha nasiib la isugu imaanaya. Guushu waa nidaam la raaco, waa hab nololeed maalin kasta la raaco. Qofka guulaystay waxa uu leeyahay waqti uu soo kaco, waxa uu leeyahay to-do list uu qabanayo maalintaasi, wuxuu iska ilaaliyaa waxa uu waqtigiisa baldareenayo. Sidoo kale waxa uu dhegeystaa ama uu akhriyaa wax faa'iido leh u keenaya noloshiisa oo wax ku ool leh. Isweydiin horta, ma waxaad u nooshahay inaad badbaado mise waxaad u nooshahay inaad noloshaada horumariso? Dad badan oo guulaystay ma sheegi doonaan xaqiiqda dhabta ah ee guusha, sababtoo ah waxay rabaan inay dadku u maleeyaan inay tahay wax fudud guusha la gaarayo. Balse runtu waxay tahay inay soo jabeen oo ay soo guuldareysteen marar badan, oo lagu dhaleeceeyay si ay u gaaraan guusha halkay taagan yihiin markii ay bilow ahaayeen, oo lagu qoslay marar badan sidoo kale. Balse xitaa waxaa laga yaabaa in lagu taageerin oo ay helin cid ku horseedda meesha ay taagan yihiin maanta. Laakiin ma aysan joojin oo ma aysan hakinin waxa ay doonayeen, maxaa yeelay qofna kuma qabanayo waxaad adigu qaban karto. Oo way is adkeeyeen oo waxay dareensiyeen inay ka adag yihiin wax walba ay qaban karaan oo ay qaban karaan. Guushu waa xanuun, waa dadaal, waa niyad jab, waa sugid dheer. Laakiin markasta aad sii socoto oo aad hore u sii socoto, wax walba isbedeli doonaan. Haddii aad guul dhab ah rabto, bilow maanta oo noloshaada la tartan maalin kasta. Tusaale ahaan, waa inaad qortaa to-do list maalintaas aad qabanayso, shaqooyinka maalintaas aad qabanayso. Waa inaad joojisaa scrolling-ka oo TikTok wada maalin walba aan wax faa'iido ah kuu keenaynin. Waa inaad akhrisaa hal buug oo page Qur'aan ah ama 4 page oo buug ah oo faa'iido kuu keenaya maalintaas. Waa inaad sameysaa hal shay ama hal tallaabo oo kuu dhaweynaya hamigaaga. Haddii ay tahay wax yar, samee maalin kasta hal tallaabo uun. Horumarka dhabta ah wuxuu ku yimaadaa inaad maalin kasta si joogto ah u dadaasho, xitaa haddii aysan cidna arkaynin waxaad qabanayso maanta. Maalin aan maanta ahayn ayay cid walba arkayaan oo ay ku soo raadin doonaan, kor kuu soo garaacayaan. Waa inaad dadaashaa maanta. Hadda waad ogaatay sababta aad u guulaysan lahayd. Ma aha inaad liidato ee waxaad u baahneyd faham dheeraad ah iyo qorshe iyo dadaal. Guushu waxay ku bilaabataa markaad fahanto oo aad aaminto nafsadaada oo confidence ku qabto. Muuqaalkan maanta halkaas ayuu ku egyahay. Fadlan channelka subscribe ku heen, like na share gareew, na soo share gareew asxaabtaada. Bye.